dhimashadii mujaahid Axmed Cadib ayaa ilaa iyo haatan loo dhigtaagayaa sababta ka dambeysay iyadoo laga wardhowrayo ciidamada nabadgelyada ee Somaliland oo qabsaday muddo 48 saacadood ah waxaana hadda galbaday in ka badan 32 saacadood kuwaasi oo ay ku howlan yihiin ilaa iyo haatan sidii ay xog lagu kalsoon yahay oo ay dadku qaadan karaan uga soo saari lahaayeen geeridaasi iyo sababta ka dambeysay bulshada gobolka Sanaagna waxa ay diyaarinayaan kacdoon weyn oo ay uga soo horjeedaan arrintaasi xukuumadda Somaliland iyo laamaha ammaanka oo loo daba fadhiyo dhacdadaasi baaristeeda Allah u naxariistay mujaahid Axmed Cadib oo ahaa shakhsi ku weyn Somaliland iyo gobolka Sanaag ayaa tan iyo markii geeridiisa la ogaaday aan wax faahfaahin laga helin inkasta oo ay dadka Somaliland ka soo horjeeda siyaabo khaldan uga faa'iideysteen maamul goboleedka Puntland oo lagu eedeeyay sirdoonkiisu inuu magaalada Hargeysa dhexdeeda ku dilay ayaa iyaguna war qoraal ka soo saaray kaasi oo ay iskaga bari yeeleen eedeymahaasi waxaana ay sheegeen in ay sirdoonka Somaliland la shaqeeyaan sidoo kalena sabab ay u dilaan sarkaal ka tirsan Somaliland aanay jirin inkastoo si weyn loogu dhagtaagayo baarista ciidamada booliska Somaliland ay gacanta ku hayaan warar rasmi ahayn ayaa sheegaya inay u badan tahay mujaahidka inay xabadu ku qaraxday maadaama oo albaabku uu xidhnaa sidoo kalena aanay jirin cid gudaha kaga jirtay oo la arkay waxaana ila wareedyadaasi sheegayaan inay xabad kaliya tahayd inkasta oo baaristu ay ilaa iyo haatan socoto oo aan laga hordhici karin sidoo kalena ciidamada ammaanka ee Somaliland laga warsugayo muddadii 48 saacadood ahayd ay qabsadeen ana ilaa iyo haatan dhamaanin wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956 eber